الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني مانتا إن شاء الله هدو إلهي نوسامحو وحان كهدلينا maadaama muxaadaradeeni horey usoo dhamaatay xogaho yar dadka walaalaha waxaa iga dalbadeen in qasiidadii oo sheekh cabdulle isxaaq uu tiriyey inaan meeshan kasoo bandhigo. ikhwaani, horta sheekh cabdulle isxaaq yaa waaye? man huwa sheekh cabdulle isxaaq? qofkii ka imaaday koonfurta wuu yaqaanaa, waxay u yaqaanaan sheekh cabdulle isxaaq ay u yaqaanaan. waa wadaad oo caalim ah oo baar dheer meel ay ku duugan yihiin koonfurta Soomaaliya. wuxuu wax kusoo bartay Ciraaq, af carabi wax kusoo bartay. markii dhulkii uu imaaday dadka markaa wuxuu afkii oo ay ku hadlayaan ama sida mayga ama ayuu ugu sheegi jiray diinta. waayo markaas masaajidu wax ka akhrin jiray. marka qasiidooyinka asaga uu tiriyay waa qasiido waxa waaye oo musalsal waaye. aniga ma dhahayo waxaan ka bilaabayaa meeshii salaada tahaaraan ka bilaabaya ilaa xaggan geynaya ma dhahayo, laakiin qasiidada waxa waaye waa isku xigta. waayo dadaa jira oo wadankii degan oo si fiican u yaqaano, laakiin insha Allah waxaan sameynayaa inaan hal aan kasoo qaato. hal aan kasoo qaadanaya. qasiidada waxay leedahay muqaddama sida kitaabada hadda مثلا kitaaba tahaara, مثلا kitaabada tahaara laga bilaaba kadib tahaare u soconay saasay u soconay. markaas salaadu ka hadlaa, soonku ka hadlaya, xajku ka hadlaya, faraa'idku ka hadlaya, hatta wuxuu ka hadlayaa birrul waalidayn. mawduuc kasta oo diinta ku soo aroray wuu ka hadli jiray. maadaama mawduucyadii marka saas uu ugu hadli jiray sheekha, hadda marka mawduuc iskuma xiijinaya. aniga maanta waxaan ka hadlaynaa salaad ma dhahayo, ama soon ma dhahayo, ama zaka ma dhahayo, laakiin waxaan sameynaya insha Allah hadduu ilaahay idmo inaan kasoo qaato hal inaan kasoo qaato, meel inaan kasoo qaato. mar wadaadku wuxuu ku hadli jiray siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo qaadan jiray. waayo siirada waxay ku baxdaa kitaabaday ku qoran tahay, iskooladka lagu soo qaatay. dadka ilmaha yaryar oo hadda ibtidaa'iga hadaa weydiiso nabiga intuu ku dhashtay uu ku sheega makuu ku dhashtay, nabiga madiina lagu duugay, waxaasoo dhan ilmaha. laakiin isaga markuu meeshuu joogay dadkii markaa wuxuu ugu sheegay afka mayga. haddaan ka bilaabno siirada nabiga, markuu siirada nabiga u daba socday muxuu dhahay? markuu bilaabay muxuu dhahay? nabigu markuu ka hadlay wuxuu dhahay aw shay abdulluwa ayowtitiisna aamino arla andorne abtar adaaji ala nasaare. sidaa maxaa loola jeedaa? kolley wuxuu leeyahay nabiga aabiisa cabdullaahi waa uu leeyahay cabdullaahi bin cabdilmutalib, hooyiisna waxaa waaye aamina bintu wahbi. marka waxaan laga maarmaanaha inaan barano uu leeyahay. qofka markaad u sheegto muxaadarada ama dhahdo aada u sheegto waxaa laga yaabaa inuu fahmo, laakiin haddii adiga af carabi ah ugu sheegtid waxaa laga yaabaa in afkii carabigii ninkii macnaha uu fahmi waayo. dadkan waa taqaanaa qof markii luuqadiisa ama waxa uu fahmayo waxa looga sheego si fiican u dhageysanaya, saasuu leeyahay. marka asoo siirada nabiga uu ku jiro wuxuu leeyahay haddana mar labaad wuxuu dhahay gubulshay isgoowaay gushaylitum iyo seduwaahe gubul samaashay geeri iyo nay godmadhaan u dhahay. gubul waa taqaanaa, gubul waxaa waaye gubulshay isgoowaay waa jismigiisu. nabiga jismigiisu wuu carfi jiray uu leeyahay. jismi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu carfi jiray.
cimrigiisna wuxuu ahaa 63 uu leeyahay ilaa hadda waa dhintii nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin qabriga sidiisu uu jira uu leeyahay wuxuu daba socnaa ilaa xayi waay nabiga qabrigiisu ku jira amaanta nabiga markuu nabiga saas u amaanay marka tan saddexaad haddaan soo qaadano wuxuu leeyahay markuu ka hadlayo sataar aroodis safar maseedaaw siidka maaye socdaalka seedii sahil aan soo salaami tan waxay daba socotaa al-israa wal mi'raaj nabiga habeenka markii la dheelminayo sataar waa yaa sataar ay ka socotaa sataar uu leeyahay sataar aroodis sataar waa ilaahay agtiis safar dhan ma tago ilaa nabiga wooye cinda sidrati lmuntaha ay daba socotaa habeenkii la dheelminayo ka sheekeynaya nabiga intuu tagay habeennimaduu soo laabtay habeenkii oo macnaha la dheelminayo muraaqatu nabiy markaasuu taasuu ka hadlaya waayo dadka haddii saas adiga ugu sheegtid wuu fahmaya sataar aroodis marka waa lagu dikrin jiray sataar aroodis safar maseedaw siidka maaye siidka waa nebiga waaye socdaalka seedi sahil la-aanu soo salaamay socod la-aanu tagay habeenka intii la geeyey habeennimaduu soo noqday marka siirada nabiga isaga marka wuu ka hadlaa saasay isdaba soconay marka halhala usoo qaadan jiray marka saasaan ku soconaynaa si macnaha anagana aan u fahno qasiidada marka qasiida oo diiniya waaye hadda insha allah maadaama hadda dhul carbeed aan joogno waxaan isku dayaynaa inaan af carabi aan u bedelno haddii la helayo qof emailku waa nagu soo diri karaa qof oo yaqaano qisada oo iyadoo dhan qeyb ah oo ay tahay dada laga yaabo hadday fiirsadaan filimkan inay arkaan ama muxaadaradan waxaan rabaa marka in iyada oo kulman ama iyada oo qeyb ah qeyba loo sameyn lahaa marka qisada odayga markuu saas usoo waday oo uu kasoo tagay marmar tawxiidku galaa wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaah kaleedow ma biyaalo ila allaho ilaah abookeen wiin maaye طبعا وفهميسان وحو ليهي لا إله إله كلا ما بجر إله ما بجر إلا الله إله موي وليه إله كلا ما بجر الله سبحانه وتعالى هو الواحد إله كلا مجر وليه كريس لي عابدين وليه إله كلا ما مجر من مر توحيدنا وكهضليا دنكستو من مر أوصل لحنو حق الصلاة وذاتك الصلاة وأوصل لحدي وايو مساجدك وإيمانه وذاتك wuxuu arkayaa dadkii oo markii la dukanayo oo salaada gab ay leeyihiin oo hataa aad u maleynaysaa sidii dooro amal asaga markuu arko sidiisba qisada goormay ka soo baxdaa waa markuu salaada uu arko dadka inay haleynayaan isla markii mambarku istaaga uu akhrin jiray salaada markuu ka hadlayo muxuu dhahay dugow salaadeed dugow dameereed ay la weelnay markii dugaanaan doonka akaantiis ka dadaalnay dugow salaadeed markii la dugayo salaada dugow salaadeed dugow dameer sida dameerka biyaha cabay amal yaa loo sujuudin u leeyahay markii dugaanan oo anaga aan saas aan dhahayno jilbahan qabsanayn doonka akaantiis ka dadaalnay macnaha saas waxaa la rabaa inaad u istaagtid koobkii biyaha inta lagaa saaro waxaa la rabaa inuu saas u taagnaado salaada markuu ka hadlayo ilaa salaada wuxuu leeyahay dugow salaadeed dugow dameereed ay la weelnay markii dugaanaan doonka akaantiis ka dadaalnin salaadii wuxuu ka hadlayaa iyo safafka nabiga calayhi salaatu wasalaam sawu sufuufakum fa ina tasri min tamaami salaa uu leeyahay waxaa la rabaa markaas sida nabiga uu sheegay in safka macnaha oo saas loo sifo waayo dadka hadday maqlaan way isdejin jireen mar asoo haddana guriga uu joogo odayga wuxuu arkay adinkii oo dhacay oo laga tagay dada adinka dhacay adinka maba maqlayn maruu ka hadlaya wuxuu yidhi aadanka weeraaw aadanka waa taqaana adinka waay allahu akbar waay aadanka weeraaw aloolka jiifow ayuu aawkay imaan maleegi awkaa bahaado aasinimadiis makin adaana wuli allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar alle uu iska jiifaa markaasuu leeyahy kaas hataa ayadoo aadanka weeraayo aadanku yeeraayo wuu maqlaa soo aadankii soo adinkii uu maqlaayo oo wuxuu leeyahay wuu jiifaa kaas wuxuu leeyahay inuu yahay aabbaha hataa caasi inuuna caasi waayo leeyahy caasinimadiis waa ku caddaatay caasi waayo nin adinka maqlaayo qisooyinkiis maanta dhankas wuu ka taabanayaa mar wuxuu leeyahay jamaac salaadeed jamaacada markuu ka hadlayo masaajidka jamaacada nafteeda
jamaac salaadeed jamaaca waahay jaal insaanen jamaaca diidkii jidkii rasuulkiiya ku jeesidi uu yidhi nabiga ama wuxuu daba socda xadiisku uu leeyahay xadiisku uu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam walow yaclamuuna maa fi nnidaai wasafi alawal uma lam yajiduu ilaa an yastahimuu xadiidkaasuu daba socda hadday ogaan lahaayeen jameecada nabiga calayhi salatu wasalaam muxuu dhahay jameecada waxay ka fadli badan tahay qofka gurigiisa uu ku dugto 27 daraja ay ka fadli badan tahay markaasu wuxuu leeyahay jamaacada ha loo tago jamaacada waxaa waaye jamaac salaadeed jeel aan u tagno wuli maadaama jamaacada ay tahay jamaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu amaanay hala tago asaa dhahay jamaacadu ka hadlaya mar wuxuu ka hadlayaa xagga salaada wuu ka hadlay wuxuu kasoo hadlay siirada nebiguu kasoo hadlay mar wuxuu kasoo hadlayaa sakaraatulmowti qofka markuu dhimanayo mar wuxuu leeyahay kafin adoodii kolkii la deeraaw kahow mayaalo intii bukuusti karko un hayne walkoo la haade uu leeyahay xaqan yaqiinan bacda mawtika yunhab waay kafinta markii la gaaro kafin adoodii waa taqaana kafin marada cad waay kafinta markii la gaaro waqtigeeda markaad dhimato ka hadlaya kafinta markii la gaaro kafinta markii la gaaro kafin adoodii markii la gaaro kafin adoodii kolkii la deeraaw kahow maya kicitaan ma jiro uu leeyahay markaad kafinta hal mar haddii oo waltafat isaaqu bisaaqi ilaa rabbika yawma idin ilmasaaq markay dhacdo wuxuu leeyahay xoolaha intii adig aad tacabtay oo adduunkan aad ugu tagtay kafintaas waa inta kale waa laga qaadaa u dhahay waa la kala qaadanaya bacda mawtika yunhab waa laka bililaga ka dhace bacda mawtik kafinta markii waqtigeeda la gaaro wax kacay laakiin shicirkan wuxuu leeyahay kafinta waqtigeeda markii la gaaro wax kacay ma laha waqtigeeda dil gaaro xoolihii adig aad tacabtay dhan waa laga qaadaya ilaa hal xabo kafintaas lagu siina uu leeyahay mar wuxuu ka hadlaayay qabriga linguru maaye marsaaka guuraaw god hawaaleed geeki galnoo baa gadoom yaalo gunay ogaada uu dhahay wuxuu leeyahay linguru maaye in loo guuro mooy lagama soo guuro qabriga uu leeyahay waa loo guura le habeenii maalin waxa la geeyaa waxa la geeyaa wax ka soo guuro ma bala arkin linguru maaye marsaaka guuraaw god hawaaleed geeki galnoo baa gadoom yaalo gunay ogaado wuxuu leeyahay maalintii godkaas la galo dhaqdhaqaaq ma jiro talow ogaaduu leeyahay dadkii uu leeyahay talow ha la ogaado meeshaas haddii lagu geeyo cadaab waayo wuri wax macnaha oo ku gargaaray ma laha nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alqabru imaa rawdu min riyaadi iljanna wa imaa xufra min xufri niiraan laba le waayo nabigeena wuxuu leeyahay qabriga inuu ku noqdo janno ama inuu ku noqdo meel oo naar ah labadaas wax ka dhexay ma laha markuu ka hadlayo qabrigan saas uga hadlayo marka qasiidooyinkiisa adiga tan kale wuxuu leeyahay qasiido kale aa jirto isagana uu ka hadlayo uu leeyahay dabcan habeenkii waxaa fiican in cishaha kadib la iska seexdo axaadiista kusoo aroortay bacda alcishaa inay ay tahay makruuh sheekada isagana wuxuu leeyahay dadkii wuxuu arkay habeenkii iska sheekaysanaya magaaladii oo marayo arkay markaas wuxuu yihi hamiin hordhaan shay hundurmooda boomneen kaha salaane hamiin gadaal shay rabaweyna tuuneen raladiis halaane u dhahay wuxuu leeyahay hamiin gadaal shay hamiin hordhaan shay hundurmooda boomneen macnaha intii salaada aan la gaarin aan seexano hurdada aan boomna uu leeyahay hala seexdo habeenka waqti dambe hala soo kaco si salaada macnaha ilaahay salaatuleyl loo dugto oo ilaahay raladiis aan helo oo ilaahay aan barino ilaahay طبعا ilaahay subxaanahu watacaala samaa dunya u imaanaya waqtiyada dambe markii la gaaro soo markaas uu leeyahay waxaa fiican in macnaha ilaahay aan barino saas isagaa dhahay marka qisada badnaaba waxay daba socotaa isaga waxaa waaye wixiisa waa sheekh caalim waaye dadka marka markii waxaas loo sheego saasay u qaadanayaan qisooyinka marka diiniga ah hadda haddii oo macnaha oo maanta aan sameyn lahayn oo qisooyinka macnaha ay qisqis aan usoo qaadan lahayn xagga soonka xagga salaada xagga xajka saasaan u wadi lahayn markuu ka hadlaayay badnaaba baadiyaha waa taqaanaa tuwaakada way cunaan baar dheer meesha lahayna zaa-id ay ugu baxdaa tuwaakada maalan tuwaaka oo markuu leeyahay urtooy tuwaaka afyeyka haya aw imaana utuutugaabo udulal waalaw oo kaleeda uu dhahay dabcan waxa waaye tuwaakada qofka markuu afka u gashto
dadkii cuni jiray way yaqaanaan waxaa waaye xoogaa wejiga saasoo loo kaduba kaas markaa bahasha cunayo wuxuu la mid yahay uu leeyahay udulwalwaal waxaa la dhahaa baadiyaha dadkii tagay yaqaana baadiyaha meesha roobku ku da-o bahal waxaa jiro xaarka saas u gadgadinayo saas markaa ninka tuwaakada cunayo saasuu la mid yahay uu leeyahay urtooy tuwaaka afyey ka haayaaw aw imaalan ututugaabow udulwalwaalaaw oo kaleeda uu leeyahay waayo udulwalwaal waxaa la kaas allah kaas marka maantana xaarka uu gadgadinaya haddii derbi soo celin saas uu gadinaya hadduu soo celin saas uu gadinaya marka wadaadka badnaba waxaa waaye mar kasta magaaladu dhex maraya wuxuu arko markaasuu saas u jeedin jiray muxaadarooyinkiis waa badnaba waxay ku baxdaa saanay ku baxdaa haddii aan muxaadarooyinka waa isku dhedhex jiraan qisooyinkiis qismeeshan oo lagu soo koobi karana ma aha waa qiso oo mu'atharo ah oo dadka ay ta'hiiriso iyo qof kasta hataa waxaa fiican qisooyinka in badnaaba qofka uu akriyo qofka badnaa nin waxaa waay ninka hadduu faqiih yahay oo caalim uu yahay qisada waxaa waaye waxba kama ah waa la siinayaa wuu fiirinayaa marka qisada dhan kastuu ka hadli jiray meel kasta marka meel kasta haddii adiga aad taabato nebigu siiradiisuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa salaaduu ka hadlayaa masjidku tan kale wuxuu ka hadli jiray qofka oo masaajidka ku dugto maya qofka guriga ku dugto qofa waxaa arkaysaa salaada ama meesha meesha waxaa jiro isaga ku dukanayo alaabtiisa meesha taash salligiisa meesha u yaal wuxuu rabaa inuu salligiisa ku dugto ma barbo masaajidka inuu aado masaajidka waayo masaajidka wuu fadli badan yahay jamaacada waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay waxaan hamiyuu leeyahay in macnaha dad ay tujiisiyaan jamaacada oo anigana aan baxo dadka habeenkii aan soo xaadiraynin jamaacada inaan guryahooda aan kusoo gubo walaqad hamamtu uu leeyahay isagana wuxuu leeyahay sheekh markuu xadiiskaasu tabaraaca wadaadka wuxuu leeyahay masjidku roorkii min shay-in roorkii muumin mahayne magaargaalna saas waay uu leeyahay wuxuu ka hadlayaa ma barabo masaajidka ujeeda intuu ku dukanaa ma barabo ha kaas magaargaal camal waa leeyahay nin oo masjidka ka ordayo gurigiisa u cararayo kaas muumin ma ah uu leeyahay muumin waxa muslim ma baa uu leeyahay muumin waxa waaye muumin waxay dhahaan muslim ilaa xaradu uu ku jira laakiin kaas qof fiican ma ah waay saas uu ula jeedaa isaga saas uu leeyahay qofka masaajidka iyo safka iyo salaada 27 daraja inaad soo qaadatid jamaacada haddaan soo sheegnay jamaac salaadeed jamaac waa jaal insaan jamaac diirkii jidkii rasuulka ku jeesidi hore u soo qaadan marka qof kasta qisada mar waxaa jirta laakiin dadkeeni waxay sameyn jireen waa lagu dikrin jiray waa taqaana sidii macnaha oo markii lasoo istaago way qaadi jireen qofkan waxaa waaye wixii isaga yaqaan haddii loo qaado xooga dhagaha inuu raariciyo saasaa loo qaadi jiray waa bahashaas bahal oo waxaa waaye oo mu'atharo ay leedahay oo qofkii dhageyso hadda kahor nin oo wadaada wuxuu yidhi niyow haddaa haysid carabiyan u bedelaa keena kitaabaan ka samaynayna lama hayo dadkeeni taariikhdooda way luntay wadanka lama hayo hadda haddii aniga aan dhaho ma la helaayo haddii maanta la heli lahay hadda wadamadan carabta aan joogno waxaad arkaysaa 100 sano 200 300 sano wax la tiriya arkay laakiin anaga waxa way dadka reer guuraa waaye wixii waa la tirina waa laga tagaya taariikhdii eber wax socdo malaha qofkaas uu dhageysanayaa khalaas hadda adiga dhaadid inuu waxa laga yaabaa uu dhahay wallahi waa maqli jiray marka waxaa fiican dadka badnaaba waxa hadda waa laga yaabaa wadankii dad heeyo ani hadda kor waxaan maqlay iyadoo cajal ah oo ay socto qayb u socota hadda kor aan arkay hadda marka meelka kuma hayo haddii marka saas ajarooyinkaas intii la keeno oo lasoo raadiyo badnaa waxaa aniga aan bahasha aad maanta aan u duubi waxay tahay in la isoo wargeliyo haddii la helayo oo laga helayo ama ha noqoto wadankii ama meel kale qof xifdisan hataa haddii laga helayo dadkii hore way yaqaanaan dadkii hore hataa sida macnaha loo bahashaan loo yaqaano hataa diinta looma baran jirin wax kas waxaa waaye tana la akrina qofka haddii tan loo akriyo ilaa diintii waxaa waaye uu ku dhagaa bes waaye salaaduu ka hadlaya soonku ka hadlaya xajku ka hadlaya hataa markuu leeyahay biri waalideyn ayaw ijeela intii ijeela in adaatay jiroob ifuul oo jilboosha waa ijir jiraasuu leeyahay isagaa dhahay hooyo markii aniga aan xanuunsanahay waa ijeceshahay hataa haddii aniga qandhaa i saaran tahay jilbahaday saasay leedahay uu leeyahay maxay daba socotaa wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan xamalatu umuhu kurhan ووضعت كرها وحمله وفصاله 30 شهرا
وبدين الآية الثانية ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا قرآن كسدح كسورة ووصينا الإنسان mid waxaa waaye xaabsataa la dhahaa midna waxaa la dhahaa xamalu did midna waxaa la dhahaa xusnu did intaasoo dhan waxay ka hadlayaan bir lwaalideyn ilaahi subxaanahu watacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyni ixsaana uu leeyahay imaa yablugana cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf fiiriya isagana wuxuu leeyahay sheekh hataa markay qandhaa ay saaran tahay marka laazim inuu marka bir lwaalideyn uu ka hadlaya dhan kastu taabanaya marka qofka waxaa la rabaa inuu qisada oo saas uu u barto oo dadka hataa u gudbiyo waa la helaa dad maanta oo macnaha oo si fiican bahasha u akrinayo marka insha allah haddana insha allah qeyb qeybaan u sameyneynaa haddana haddii qeyb kale aan aragno oo mathalan waan sii wadaynaa bal waxaan isku dayaynaa inay markaas si toos markaas sidii nathrigii gabay ahaan ugu qaadno noqonaysa oo gabay ahaan loo qaado oo u socto gabay ahaan marmar waxaa jirta sidii dadka naxwoleyda naxwaha markii la baranayo oo la fadhiyo naxwaha waa la akriyaa naxwaha iyo sarfiga iyo waa lagu gabiyaa laakiin dadka waxa waaye saas amal inaan u sameynaa isku dayaynaa oo toos loo akriyo qofkii sarfiga soo akriray waa maqlaysaa marka sidii naxwaha amalaan u sameyneynaa waan akrinaynaa saasaan isku dayaynaa inaan akrino dadka marka walaalaha insha allah maadaama muxaadarada horey usoo dhacday oo dadka walaalaha qaar hoogo iga codsadeen inaan sheekh cabdille isaaq digrigiisa xoogo aan u qaato marka hadda markaan waxaan qaadayaa ayadoo aan la turjumaynin oo keligeed ah hadday xoogo waan isku dhedhexa jirta soo maa wuxuu leeyahay awshey abdulluwa ayowtitiisna aaminowa arla andoorne abtar adaajey ala nasaare ilan qisooyinkii maantona aan wadnay dad toos markaa toosaan u akrinayna meli ka dhaladii ka nabiyowi makawiina meli inguri ka gariyowi dalmadiina gubulshay isgowaay gushay litun iyo saduwaahe gubul samaashay geeri iyo naay god ma dhaagne languri maaye marsaaka guuraaw god hawaale geeki galnooba gadoomiyaalo gunay ogaada kafan adoodii kolkii la deeraaw kahowmiyaalo intii bukuustii karka on hayne warkoo lahaade jamac salaadeed jamaca waahe jeel insaane jamaca diidkii jidkii rasuulkeen ku jeesidee masjidku roorkii min shay in roorkii mumug mahayne mamoodiyeegii magaar gaalne saas waaye kafan adoodii kolkii la deeraaw kahowmiyaalo intii bukuustii karka on hayne warkoo lahaade sataar aroodii safar maseeda siidka maaye socdaalka seedii sahila-aan soo salaame markaa qisada wartoytu waa kaa afjay ka haayaa aw imaala watutugaawo udulal waalaaw oo kaleeda laa ilaaha ilaah kaleedo ma biyaalo ila laaho ilaah abookeen wiina maaye nabiyow gadaalshay nabi ku kooye no haraanhe nafteen ku dhowrneeg naartowna howmoog ayna daarnen tan hadday waa ilowey waxaa waye nabiyow gadaalshay wuxuu ka hadlayaa bidcu ka hadlaya waxyaalaha soo derisay kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiis wuxuu ku leeyahay man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun calaa saaxibihi haddii wax oo nebiga iyo qur-aanka iyo sunnada aan lagu sheegin haddaad keentid beri waa lagugu celinaya man riwaayo kale waxay leedahay man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun diintan waxaa waaye waa la kamid waxa lagu soo dari kara malaha allahu subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina khalaas nabi maxamed shabo ku dhuftay waxa lagu soo dari kara malaha anay ila tahay iyo anaa keeni la wax kasta waxaa waaye beri haddii adig aa keentid qiyaamaha markii la gaaro haddiiba nebigii iyo sunnada aan naga arkin beri adaa lagugu celinaya jeebka qaado iska meel geyso lagu dhahay marka wax kasta waxaa fiican qofku markuu hadlayo sunnada nebiga iyo qur-aanka iyo inuu ka hadlo wax laakiin lama baahan jeebka waxaa kala soo baxay waayo diintan waxaa waaye meelay ku qoran tahay allahu subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi
والرسول هذا وحكو دودان انت لو عليا الى الله والرسول لو عليا معها انا ده ايو شيخي بلا ده aniga hadda sheekha qasiis markaan tirinay waa qisa diini ah oo diin markaan arkay oo aan baaray markaan arkay inay daba socoto sunnada nabiga iyo quraanka inay daba socoto markaan arkay aan soo qaatay laakiin daliil ma noqonayo sheekha saasiri wax sheekeen inaad marka dadkii sheekhay bil asaasin hadal ma maadaama qisa diini ay tahay oo markaan fiirinay shicirkiisa iyo sunnada nabiga markay is daba socdaan markaan arkay aan jeclaystay inaan dadka u faa'iideeyo aan u sheego ما لكن قصة هديبة معناها قفك بني آدم يخطئ ويصيبه لكن دار الهبل أساسي للدليل معها مركز قصة ما دام أي نقطة قصة حقوق الدين تقول له أو معناها أي كحد ليس ما دتك ولا لها مركز وحنا جعل يستي إن الحقوقها أم فائديو أم الشيء أو قصة أي قاتان وايو إن شاء الله كل هدي مركز إن شاء الله هدي إلهي نوصى محو وقت كانوا أسكوسي توصل نقولنا هدي إن شاء الله مركز عندنا إن شاء الله موضوع كلا موضوعيد waa iska badnaanayaan inkastoo insha Allah mashquulka iska badan yahay insha Allah dadka walaalaha naftooda waxa waaye hadii kulay wixii aniga aan qalday ilaa kan digriga nafta dad ku takhasusay haday dhageystaan waa isax karaan saas waaye taasna saas waaye waan jeclahay qofku waxa la rabaa inuu hataa wixii ka qaldan inuu dadku sheego hataa wixii hataa hadii liigu buraajiyo insha Allah waa sam'an wa ta'an leeyahay marka dadka walaalaha naftooda waxa la rabaa inay hataa haday dhageystaan inay macnaha fahmi karaan kulli hadii la geeyo oo meel la geliyo ama baasha ay dada laga yaabo hataa inay macnaha ay dhageystaan dada laga yaabo inay hataa oo meelaha meel kas laga dhageysto marka waxa fiican in macnaha oo la fahmo waayo qofka waxa waayo kow marka adiga wax dhageysanaysid lama mucaarado waa la dhageysaa horta meesha muxuu ka hadlaya wax kas waxa la rabaa qof wax kasoo ka hadli kara inaad fahantid horta maxaa way baasha intee u socotaa ina mawduuc markaad fahantid meesha wax u socdaan markaad dhageyso kadib marka ha wixii calaamadaha adiga sameeyso laakiin hadii ala dul markii adiga wax maqashib akhray aad ku soo boodid luqada macnaha qofka qof waxaad arkaysaa wax kasto laga hadli karaa wax kasta diinta marka anaga insha Allah dadka walaalahan waxaan ku soo gabagabeynayna insha Allah muxaadaradeeni maadaama waqtigan cariir iska yahay dadkana xogo ay daalan yihiin إن شاء الله كل تقول الله نكسو قبينيا الله سبحانه وتعالى هلا قبقو ملك سأجوتد الله سبحانه وتعالى قرآن كيسوحو كليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا قفك إله سبحانه وتعالى وكبقو الله سبحانه وتعالى مخرج أيوه بحنا مخرج وحافي عندك ولا لها إن اسكحر نادان آفي عن إله سبحانه وتعالى وحوليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا لك لا تجن dadku walaalaha inay saas u soo qabsadaan waay inay firqooyin iyo balaayi iyo inta loo kala baxo hebel saas waay firqada saas waay waxa soonan Allah subhanahu wuxuu leeyahay huwa samaakumul muslimiin dadkuna muslimiin waay imaam shaafi'i wuxuu dhixi jiray ida ikhtalafna mas'ala alasna ukhwa mas'ala hadan isku ikhtilaafno aniga aan ku ikhtilaafo ina adiga dhabarka ii jeedis maaha ina hatta aan wada hadalno walaalo saas waay mas'aladaad saas waay maanta waxa waay dadkii wax badan arkaysa dad waxaad arkaysaa oo macnaha markaad telefishinada aad fiirsatid dad isduqayna arka dhinacyada iska tataabanay lama rabo wax kaas waxa la rabaa qofka walaalka ah waxaan mas'ala diiniya waan ku kala bixin imaam shaafi'i maliki hanbali abu hanifa wala ikhtilaaf jiri laakiin waa la heshiinaya farduhu ila allah wa rasuuli niyo barnaamijkaas aniga saasan warka ay soo aragta laakiin hadii adiga hawada aan soo marino wax aan jirin adiga ay soo mariso caamad iyo meesha ku halaabaysa هذا كورا واحد عادي نينا وحو مغلي حديث ولا ولكن شرق وغرق وحديث أو كقرن عمدة الأحكام أنت اللي ما كادنا حق اللي ما كادنا حقنا اللي ما كادنا ولكن شرق ساس اللي كادنا وحبو مغلي أنتو ساس أصي حديث كادي ورمحاق وقول على مركز في العلماء وريريس أنت اللي ما كادنا أنت اللي ما كادنا مركا إخواني عمدا يا لوريرين مسائلها أو قار أو اختلافي أو مسائل أو وحيالها خاصة عامد على دحكين علي بن ابي طالب وحوليه خاطب الناس على قدر عقولهم ولا خطاب ضدك وح عقلغود نين او وحب ان فهمسنين هدا اجماع الامه iyo balaay iyo wax aan jirin hada u sheegtid wareera qofku waa la dhisaa wax u sheeg tartiib saas waaye tartiib hadii adiga tartiib wax u sheegtid qofku wuxuu noqonayaa qof wax yaqaan laakiin nin caaw imaad hadii ala dul ijmaac الامه u soo naqlisa ka waran مسائل استاذ وحوي شيخ ابن وحو داي ساس وداي شيخ ابن لا نين horta dhis wax u sheeg barnaamijka saas waaye barnaamijka intuu ka jira kaale soo fadhiiso
ya udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma walmawcidati alxasana aa lagaa rabaa inaad tartiib oo sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadaha u fidin jiray inaad u fidiso kaali tartiib waxa u sheegtid bilxikma lagaa rabaa iyo walmawcidati alxasana tartiib inaad waxa u sheegtid kaalib diinti saas waaye allahu subxaanahu watacaala saasuu dhahay haa inta soo fadhiiso hataa hadduu wax kale yahay inaad ka dhaadhe isku day haddaan gadaal aan u laabano khamriga waa taqaanaan khamriga marxalo tadarajuu soo maray khamriga markii maka la joogay aayadaha markay soo wada degaan wa manaaficu linnaasi wa ithmuhuma akbar khamriga markuu tartiiba loo xarimay khamriga mar waxaa la dhahay wa ithmuhuma akbar oo mar waxaa la qul fiihimaa ithmun kabiirun hal mar lama dhin waxaan xaaram waay qabababa lama dhin kowdii tartiiba loo xarimay madiine markii la tagay maxaa soo degtay inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun kamil min camali shaytaani fajtanibuu marka intaasna waxaan ugu dan leeyahay dacwada qofka markuu fidinayo qofka oo sheekha wuxuu taagan yahay booska nabiga calayhi salaatu wasalaam uu taagan yahay alculamaau warasatu lambiyaa booska nabigaa taagan tahay waxaa lagaa rabaa inaad dadka markaa saas wax ugu sheegtid oo dadka macnaha ka dhaadhicisida wixii macnaha hataa waxaa laga dhaadhicin karaa qofka hataa hadduu qaldan yahay mas'alada xaggay kaa jirtaa mas'alada saas waaye inta saas waaye aa lagaa rabaa laakiin haddii adiga macnaha anigana saas ku dhaho aniga ismarkan haddii maanta aniga aa i radiso oo adigaa dhahdo ya haddii meel oo adig igu fadeexito ama intaa iisoo marito ma laga yaabo inaan wax kaa dhagaysto bal anigana difaacan kaa galaya weligay waxaaga ma dhageysanayo haddii aniga meel banaanka adiga igu fadeexaysa marka fadeexin lama rabo maxaa la rabaa dadka in wax loo sheego dadkeena waxa waaye dhisitaanay u baahan yihiin dadka in la dhiso dadka in wax loo sheego dadka in lasoo jiito marka diintan waxa waaye dadka u sheeg nabiga calayhi salaatu wasalaam asaa leh fadakir inamaa anta mudakir adiga wax sheega lahay hanuunka rabbi iska leh adiga wax u sheeg dadka saas dheh ha allahu subxaanahu watacaala muxuu leeyahay faman shaaa falyu'min waqul ilxaqu min rabbikum xaq rabbiginu ka aaday faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur kii raba ha rumeeyo weli kan kale ha gaalo inaa actadnaa lilظaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha waxaan u diyaarinay uu leeya ilaahay suraadiquha derbi wain yastakiidu hadday dalbadaan yuqaathuu bimaain waxbaa la siina bimaain biyo kalmuuli oo badbada marka adiga waxaa lagu leeyahay wax sheeg hanuunka rabbi iskale xoog ha u qaadanin tartiib ne walaala saasaa jirta waxaasaa jira allahu subxana wataala saasuu dhahay khalaas meeshaas ku ekay laakiin haddii adiga a dhahdid ilaa wa ilaa haddaa waxa qaadan wayso wallahi intaan kaa jaraya saasaan ku yeelaya qofku marka saas ma aha ani waxaan marka tala ah insha allah dadka walaalaha ah haddii qof kasta oo saas diinta u fidinaya oo booska nabiga calayhi salaatu wasalaam amal u taagan yahay hataa waa la dhibaya qofka dacwadu markuu la soo baxo ikhtilaafa arkaysa wax kasta adiga marka waxaa lagaa rabaa wixii sunnada lagu sheego iyo qur-aanka qaado fasayaraa ikhtilaafan kathiira calaykum bisunatii wa sunati khulafaa raashidiin caduu binawaajid goys dambeedku ku qabo sunnada nabiga qabso bes wax kas waa la i wareeri ma ah diinta baro lama rabo habeeniyo maalin haddaa leedahay ka waran wallahi billahi sheekho dada arkaysa markaa magaalada aad socotid su-aal basiida lagu weydiinayo oo hataa waxaas leedahay ninka maxaa ku dhacay wax oo dadka ilaga diinta ma yaqaanaan diinta waxaa la rabaa ina adiga aada u gargaartida lagaa rabaa diinta u gargaar nebi lasoo diraayo ma laha adaa nebi ah booska nebiga adaa taagan diinta inaad mas-uul ka noqotid oo dadka keentid soo gelisid soo xaraysid wax u sheegtida lagaa rabaa ha booska nebigaa taagan tahay diinta hala barto diinta dadka in loo faa-iideeyo dadka in macnaha la waacigeliyo wax kasta in loo sheego dadka ayaga qaadanayo laakiin hadday noqoto ka waran wax kasta hadda adigaa dhahdid maya aniga shaqadaydi maa aniga ilmahayga iyo waxaasa ii daran aniga diinta iyo waxaa waay culimada mas-uulka ah laa culimada adi naftaa culmiya tahay fa minhum dhaalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraat dadka saddexdaanay ku jiraan fa minhum dhaalimun linafsihi mid dhaalim waayo khalaas waayo dulmi iyo waxbuu iskaga jira naftiisuu dulmiyey balaayuu ku dhex jira kan kalena waxaa waa minhum muqtasid min waxaa waaye wixii loo diray salaadiis sunnadiis iyo wixii wax kale wax igama jiraan qaarna waxaa waa minhum saabiqun bilkhayraat maxaa loo baahan yahay saabiqun bilkhayraat qaarna habeen iyo maalin salaatuleyl iyo dacwi iyo khayraad iyo ay u wada socdaan adin saasa lagaa rabaa inaad dadka marka haddii saas kulli ay wada noqdaan
qof kasta waxaa waaye isagaa qaadanaya wixii loo keen qofka inuu isweydiiyaa fiican yow maxaa lagu abuuray adiga adduunkan maxaa lagu abuuray maxaa lagu keenay inuu isweydiiya allahu subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi uma aan abuurin ilaa liwaxiduun inaa ilaa caabud marka shaydaan iyo naf shaydaana iga qaalib naqdi marka la hadasho wuxuu ku leeyahay wallahi shaydaan sheekhow shaydaanka maxaan sameeyaa shaydaanka iska celi ina shaydaana lakum caduwun ilahay saasuu leeyahay shaydaanka cadow ah iska celi lama rabo inaad dhaha shaydaana iga qaalib naqdi oo banaanka adii taagnaatid lama rabo shaydaanka waxaa waaye beri markii qiyaamaha la tago wuu kaa tagaya wuxuu ku leeyahay ilaa an dacawtukum aniga waan ku wacay bes fastajabtum lii adin waa i ajiibtay falaa taluumuuniha idagaaline walumuu anfusakum naftaada dagaal ku leeyahay saa ku dhahay maantana waxaa waay beri markaa shaydaan waxaan ku dhihi laha walaalkee tahay intii beri banaanka kaaga tagi lahaa shaydaan maanta adig ugu taganta maanta fursada haysataa hadda fursad gacantaaday ku jirtaa beri intii adigi dharkii caddaa inta aan lagugu xirin oo meel aan lagu gelinin maanta walaalkee tahay waan ku naseexinayaa fursadda gacantaada ku jirto hadlayicin fursa carabta waxay dhahaan idaa habat iriixu faqtanimha dabeesha hadday soo baxdo ka qaniimayso marka waxaa lagaa rabaa inaad ka faa'iidaysid waktigaaga cimrigaa lagu soo sii meeqa jira tahay maanta kasoo qaad 40 ama 50 beri markii qiyaamaha la tago sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay qofka markii allahu subxaanahu watacaala hortiis saas loo istaajiyo waxyaalaha ugu muhiimsan la weydinaya maxaa kamid ah cimriga aniga aan ku siiyey cimriga aniga aan ku siiyey intee kusoo dhamaysay cimriga lagu siiyey cimriga aniga aan ku siiyey intee kusoo dhamaysay adaa lagaa rabaa jawaabta yaa cimrigii iyo maalka iyo cimriga lagu siiyey cimrigii markaa macasi maa kusoo dhamaysay cimrigaaga maxaa kusoo dhamaysay haddii maanta adiga aleed cimrigay cibaadaan kusoo dhamaystay waxaan kusoo dhamaystay cimrigayga diinaan kusoo dhamaystay jawaabta adaa lagaa rabaa inta waxaa kaa saaran raqiib iyo catiida inta saaran allahu subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay maa yarfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid intii xagga lagaa saaran yahay wixii adiga aad shaqaysatid beri hortaaday jiraan meel a lagu dhigi allahu subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ma lagu duminayo waxaa meela lagu dhigay beri haddaad soo shaqaysatid wixii waa kas waa lagu keenaya kitaabkaaga arka beri dadkii kitaabka midig laga siino way farxayaan haa umuqra'uu kitaabiya inii danantu anii mulaaqin xisaabiya fahuwa fi ciishatin raadiya fi jannatin caaliya marka kan wuxuu leeyahay وأما من أوتي كتابه بشماله قفكي كتابك سلقاس يوم بدحه فيقول أنا يا ليتني لم أوت كتابي محاول كتابكم هذا ولم أدري ما حسابي مركا ما دام موضوع برارجين اسكيه مع محاضرة أو معين معها محاضرة عوان كذا وبرارجين عام اسكيه هذي تي لبعض تي هري مع تي لبعض واي مركا أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى الله وفروا إلى الله والله إلهي سبحانه وتعالى أنا أباهن أنا أسجن نوم أباه حديث القدس محوها كل جين هدي إلين كمان على أتقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الشيء ولا لما أنت هدان نقطان أتقى رجل قلبي أو نين حلقه في قلبي هدان نقطان لما أنت أو نين هو عبس بدن الدنيا بغرتويد أنا هاي سواحة بكما صو قرني ثاني ولا حديث القدس واي حديث كديرا واي وحقوق قرية 40 نواوي هدان نقطان دمانتين على قلبي أفجر قلب رجل واحد هدان نقطان دمانتين قالاء وضا نقطان أما فجر وضا نقطان ما نقص ذلك من ملك شيئا كسو قرني زمالها فمن وجد ذلك ننكي خير لسيو مركز أو خير أهله فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه مركز دي ما ندى قيامها وحفي عن الغسي الحمد لله haddii adiga lagu siiyo wax oo macnaha adig aan ku qalmin falaa yaluumana nafta ilaa nafsaka naftaada dagaal marka hadda kitaabkii waana dhex yaala sunnadii wayna dhex taashaa marka hal iska soo baxo hal iskugu imaado
diintii hala barto waxyaalaha khuraafaadka iyo meelaha laga soo dhexdhexbaxo sida saxda ha loo qaato qur-aanka iyo sunnada nebiga ma aha maanta haddii adiga diinta oo adiga aa qaadan weyso oo maanta diinti meeshii adiga aa ka qaadan weyse ya diinta waxaa lagaa rabaa inaad qaadatid sida xaqa inaad u qaadatid sida aqwaal ijmaac lumma sidii asxaabta sida inaad u qaadatid waay hawadeyda iyo hawadan ka qaadanaya iyo meelaan ka maqlay ma aha walaalow diinta sidii la rabay loo qaato dadka walaalaha si fiican waxa looga sheego annaga waxaa waaye insha allah habeen iyo maalin dadka walaalaha insha allah wixii ay dalbadaan waa loo sheegayaa wixii culimada macnaha sheekha macnaha oo macnaha wixii fiican dadka ha loo sheego wallahi dadka diinta dadka qaar ma biyaqaana ma la socdaan wax adduunka dhacay qofku hataa waxaa la rabaa adduunka inuu la socdo wixii caalamka macnaha muslimiinta ku dhacay dhankaas adiga nabigeena calayhi salatu wasalam wuxuu leey man lam yatam bi umuur muslimiin falaysa minna ha laazim inaad la murugtida muslimiinta wax ka dhacay dhankaas habeen iyo maalin allahuma aciz alislaama walmuslimiin waadilla ashirka walmushrikiin alle marka insha allah kolley walaalayaal hadda muxaadaradii intaan kusoo gabagabeyneynaa wixii kheyra insha allah wixii aniga aan haleey shaydaan ay ka ahaadeen wixii aniga aan sawaabin insha allah ajri xasanaad allah noogu siiyo insha allah idinkana waxaa waaye allah naga dhigo kuwii allahu subxaanahu watacaala fayattabicuuna axsana allah naga dhigo aqulu qawli hada واستغفر الله السلام عليكم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول